soomaalida ugu horeysay dalkani koonfur afrika ayaa soo gaartay 1994 xilligaasi oo dadka madowga ah ay iska dulqaadeen gumaystihii cadaanka ahaa ee ka arrimin jiray dalkani koonfur afrika. sanadkii 2000 ilaa iyo 2010 ayay soomaalida xoogeeda soo gaartay dalkani koonfur afrika, waxaana haatan lagu qiyaasaa ilaa iyo 50,000 oo Soomaali ahi. ganacsatada Soomaalida ayaa markii ay dalka soo gaareen waxa ay ganacsi ka abuureen tuulooyinka ka fofog magaalooyinka waaweyn, halkaasi oo inta badan ay ku nool yihiin dadka madowga ah ee aan waxba haysan, isla markaana nolosheedu tahay mid hooseysa. waxayna la kulmaan weeraro kaga yimaada qowleysato u dhalatay dalkani koonfur afrika iyo ganacsatada koonfur afrikaanka ah oo u arka in Soomaalidu tahay dad firfircoon, isla markaana khatar iyo khasaaro u keeni kara ganacsigooda, taa oo sababta dil, dhac iyo boob loo geysto goobaha ganacsiga Soomaalidu ay ku leedahay tuulooyinkaasi. goobaha qaar ee Soomaalidu ganacsiga ku leedahay waxaa kugu adkaanaysa inaad gudaha u gasho oo aad naftaada ku aaminto waa cooshado isku raran ah, isla markaana isdul saaran oo aadan arkaynin cid kugu soo socota iyo cid kaasii socota toona, waa mid khatar gelin karta naftaada. dadka qaar ee u dhashay dalkani koonfur afrika ayaa qaba in Soomaalidu tahay dad karti leh, isla markaana ganacsi ka abuuray meel nolosheedu hooseyso, isla markaana qiimaha Soomaalidu uu ka jaban yahay ee kan kale oo ay iibiyaan dadka madowga ah ee u dhashay dalkani koonfur afrika. That business Somalia is right because the prices is very cheap. qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida ayaa weydiiyay nolosha iyo ganacsiga deegaanadaasi. magacayga waxaa la yiraahdaa Xasan Cali Dheere, waxaan joogaa locationka la yiraahdo Qaliijo. wallahi dhibka ka jira waxa waaye dhinaca jiingadaha macnaha sida habeenkii oo kale adigu macnaha saqada dhaxo kale waa ma dukaanka waa lagu soo jeebinaa waa lagu soo galaa. dhibka jira waa dhibkaas habeenkii waa tahay oo tuugada macnaha oo ka qaraabata habeenkii waa gar midda kale ma artay maalintii adeeg muga aaday soo qalatood albaabka muga furto waa lagu sugaa irida lagu sugaa. dhibka weyn location ka jira waa intaas qarat badanaa macnaha xagga locationka dadka madowga wax ka gadno sida jenjigo qalatood macnaha qoftii macnaha wax ka gado kala jenjiga oo soo qalatood jenjiga macnaha dagaalka ugu badan jenjigo ka dhacaa macnaha adigoo kuntan soo kugu laada kuntiga oo soo kuleeyahay boqol ma artaan kugu lahayo jenjiga. dhibka weyn dhibka intaas oo ka dhacay dagaalka macnaha badanaana boobay keenay mugo dan boob macnaha kan jenjigo uga qaldaa lagu leeyahay. bismillaah alxamdulillaah magacayga waa Mukhtar Xuseen Maxamed oo degan magaalada Cape Town gaar ahaan Qaliijo. waa bahda saxaafadda oo soo booqata maanta aad iyo aad ay ugu mahadsan tahay, maxaa yeelay mar walba inay xaaladdeena ay la socdaan aad ay ugu mahadsan yihiin, annagana ayakana u mahad celinaynaa. marka dhibaatada haddii la soo koobo dhibaatada South Africa ku haysta waxaa ka mid ah boobka oo joogtada, dilka oo joogtada ah, inkastoo hadda oo xilliga hore oo sidii saadka loo dili jiray hadda oo xoogaa ay sidii ay dhaanto. Soomaali meeshaana waxaa waaye dadka loomooyanka ay ka yihiin haddii uu ninka South African yahay maanta wax lagu weeraray ma, laakiin Soomaali markii la yiraahdo tu kastaba inuu ka haweysto waa suurtagal. maxaa yeelay habeen walba markii lagu soo boodo ama dhalinyarta ilamida loo soo boodo nafsadooda sidii ku badbaadi kara ay ku badbaadinayaan. booliska haddii ay wacti inta jibiska oo socdana booliska markii ay hoosh wax walba kasta laga sameesto ayay meeshii maayay, markaas adiga ay waxyaabo badan ka qorqoraan. xasan kaafi maxamed shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.